مسؤوليinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay mashruuc ballaaran oo ka qayb qaadan doona horumarinta iyo bilicda magaaladani Burco kaas oo jidadka iyo shaariiciyada waaweyn ee magaalada Burco lagu tixi doono leer solar ah oo iftiimiyo wadooyinkaasi isla mar ahaantaana ay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer kaga bixi doonto madowgii wadooyinka mashruucan ay ku baxayso lacag dhan $200,000 Mareykanka oo ayna maalgelinayso dawladda hoose degmada Burco gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada gobolka Togdheer sidoo kalena baaq u diray bulshada ku dhaqan magaalada Burco waxaan soo jeedinayaa alaabta maanta wata la dhagax dhigay waa la bilaabayaa insha Allah laamiyadeenna inta badan madowgeenu ka cabanaynay madow dambe insha Allah la arki maayo waxaan u baahanahay in alaabta la ilaaliyo guri kasta oo aan xabad ka hortaagno isaga mas'uuliyadeeda qaaday iyaga kala xisaabtamayno haddii ay wax noqoto ayaga kala xisaabtamayno waana qalab garantiina oo aan si hawl yar wax ku noqonaynin weeye lacag waxay nagu joogtaa ilaa $200,000 ku dhow cid naga caawisay ma jirto dawladda hoose degmada Burco ayaa hawsha gashay marka si jeclo leh ayaa qalabkan loo soo sameeyay reer Burcona waxaan u soo jeedinaynaa si jeclo leh in qalabkan noola ilaaliya waxa iyaguna geestooda ku amaanay dawladda hoose mashruucan gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye taliyaha ciidanka booliiska gobolka iyo shirkadii ku guuleysatay mashruucani waa dadweynaha reer Burco hawsha faraha badan ballaaran miisaan kale wuxuu ahaa waxtarka ah maanta waxaan maalayaa shaariicada intooda badan ay iftiimayaan marka leerkaas muxuu hawsha la hirgeliyo waxa xilliga ka saaray cid kasta oo bir laga hortaago cid kasta oo leer laga hortaago waxa xil ka saaray ilaalintiisa magaalada aad bay ugu baahnayd maayirka iyo golaha deegaanka ee Burcona aad baan ugu hambalyeeyay amniga wax ka qabtaan security-kuna wuxuu ka mid yahay leerkaas wuxuu ka mid yahay security-ka magaalada Borough district I am very happy to do this one for the future of the borough. Ka qayb qaateen annaguna waxaan aaminsanay ka shirkad ahaan insha Allah inaan keenay sidii anagu isku ogeyn maamulka dawladda hoose alaabtii tii ugu tayada fiicnay وبرواقة محمد شبكة عالمي قادوين نيوز مقالة Burco